بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارتا قيمة قدرنتي عشمة مدنو ميل كستا جوبتان كسو دوادا سومالي ميديكال لابراتوري كانال كينن أو براتين عشان لا تحلقو شي باركا إن شاء الله ما أنت وحن ينسو قد بين دورنا قيب كميتا يورين أناليسيسكا سيدان هربو سو شيغني يورين أناليسيسكا waxaynu ka soo qaadanay laba qaybood ee qaybta koobaad oo ahayd physical examination iyo qaybta labaad oo ahayd chemical examination ka insha Allah maanta waxaynu qaadan doonaa qaybta saddexaad oo ah microscopic examination oo qaybta microscope ah iyadoo aynaan soo wada qaadanin dhammaan oo aynu ka soo qaadanayno only qaybta WBC ga qaybta white blood cells ee lagu arkay urinta horta guud ahaan urinta waxaa jira normal ahaan WBC ku jira isagoo xadid leh oo macnaha la oranayo number kaas baa ku jira haddii numberka uu ka batana waxa la oran karaa waxba jira haddii numberkaas uu yahayna macnaha waa normal oo wax dhibaato ma jirto haddii aynu soo qaadano numberkaas haddii marka fiilka aad eegtid urinta markaad wareejisatid salimanka aad saartid slide-kaaga microscope-ka stage-ka saaratid aad fiilka eegtid fiilka inta u horeysa ee kuu soo baxda ee ishaadu qabato haddii ay 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 mid oo urin WBC aad ku aragtid taas macnaheedu waxa weeye waa normalkii aynu sheegnay oo 5 iyo wixii ka yari ma aha wax calaamad xanuun inuu meesha ka jiro muujinaysa ama dhibaato kale inay jirto muujinaysa ma laha wixii inta ka badan iyada oo loo kala eegayo hadba level ayaa loo yaqaanaa waa abnormal WBC amaba waxa jira wax loo yaqaan baselis amaba waxa jira meesha infection baa ka jira tusaale ahaan haddii 5 ilaa 10 oo kale aad ku aragtid halkii fiil ay ishaadu qabanayso waxaan oran karnaa ilaa ugu yaraan hal balaas oo WBC ayaa meesha ku jira haddii ay ka bataan oo inta ilaa 20 oo kale ay noqdaan waxa la dhici kartaa in 2 balaas noqoto 20 ilaa 40 oo kale 3 balaas wixii inta ka badan mani ama too many loo akhriyo WBC ga lagu arki karo urinta inta ugu badan waxa loo yaqaanaa neutrophil neutrophil kaas lagu arki karo urinta waa ka ugu badan horta inta aynaan u gelin waxyaabaha haddii baselisku ay kaadida ku farabataan waxyaabo badan oo ayaa dhici karta waxaa dhici karta inay bladderka uu infection ku dhacay sida UTI oo kale waxaa dhici karta inuu cystitis jiro oo kamid ah xanuunada ku dhaca bladderka waxa kaloo jiri kara prostatitis hadduu nin yahay oo kale inuu prostate ku xanuunaya dhici karta waxa kale oo dhici kara inuu jug kale ama waxyaabo kale ay soo gaadheen dhaawaca waxa kale oo jiri kara inuu nephritis jiro oo xanuun kelida xaggeeda ka imaanaya uu jiro waxa kale oo jiri kara inuu kansarka kaadi haysta ku dhaco oo kale uu dhici karo waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha badiya WBC ga inaad meesha ku aragto fara badan oo ay dhici kartaa sayna horeba u soo sheegnay WBC ga meesha lagu arki karo waxyaabaha ugu badan ee maxay tooleen ugu badan waxa weeye waa qaybta loo yaqaano neutrophilska badanka waxaad kaga saari kartaa waxyaabaha kale tusaale ahaan haddii ay yeast cells oo kale meesha ku jirto ama RBC oo kale ku jiro waxaad isticmaali kartaa reaction-ka GAA oo loo yaqaano glycolic acetic acid kaas oo meesha ka saaraya haddii RBC iyo waxyaabahaas ku jiraan kaliya ta kuu soo reebaya neutrophilska si aad u garatid marka guud ahaan horta WBC ga aan soo sheegnay waxyaabahaas buu la taxalluqaa normal ahaan kaadida waa laga helaa wixii inta ka badanna inagoo xaaladaha aan soo sheegnay lagu kala cabirayo xanuunada noocaas mararka ay jiraan uu kor u kaco WBC gu waxyaabaha uu kaga duwan yahay waxyaabaha kale tusaale ahaan markaynu sheegayno RBC ga oo kale RBC ga uu ka waaweyn yahay WBC ga oo 5 ilaa iyo 1.5 ilaa 2 diameter ayuu noqdaa waa round dhexdana granus ayuu ku leeyahay
insha allah maanta casharkeeni intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa. fadlan seenu meel sare u gaadhno subscribe-ta iyo like-ta iyo share-ta nala moogaanina. waxaan kaga tegaynaa dhammaantiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.